warka TV-ga Somali Cable ayaa daawanaysaan markana mudane ka tirsan baarlamaanka dawladda federaalka Soomaaliya ayaa waxa uu si cad uga soo horjeestay hadal dhawaan ka soo yeeray gudoomiyaha guddiga dastuurka ee arrimaha federaalka ee dawladda Soomaaliya xildhibaanka oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho warbixin amuurtaasi ku aadan waxa inoo soo jeedinayo wariyaheena Axmed Xasan Ibrahim xildhibaan Yaasiin Cabdi Saad oo kamid ah guddiga madax bannaan ee dastuurka federaalka Soomaaliya ayaa ka jawaabay hadal lawaan ka soo yeeray qaar kamid ah guddiga la socodka arrimaha dastuurka qaranka Soomaaliya waxaana uu guud ahaan beeniyay hadal ku aadanaa in wax ka bedel lagu sameeyay qaar kamid ah qodobada dastuurka qaranka Soomaaliyeed oo ay ka dhawaajisay gudoomiyaha guddiga madax bannaan ee dastuurka qaranka Soomaaliya xildhibaanka oo la hadlayay qaar kamid ah warbaahinta ayaa tilmaamay in ay guddigani awoodi waayeen shaqadii ay hayeen isagoona ugu baaqay in shaqadan ay ummadda Soomaaliyeed u hayaan ay iska wareejiyaan maadaama shaqadan ay tahay mid ku culus oo ay meediyaha mariyeen runtii warar aan guddiga aan ka soo bixin oo maaragtay aan baarlamaankana aan ka soo bixin wararkaas oo sheegayay in guddiga ay wax ka bedel ku sameeyeen qaybo kamid ah dastuurka ay ku sameeyeen marka ugu horeysa horta waxaan rabaa inaan caddeeyo inaan warkaasi uusan ahayn war guddiga ka soo baxay inuusan warkaasi ahayn war baarlamaanka federaalka ka yimid baarlamaanka federaalka iyo guddiga toonahi inaysan maaragtay arrintaas aysan waxba runtii aysan kala socon waxaan rabaa marka inaan u soo noqdo geed socodka dastuurka iyo wax ka bedelkiisa waxaa isugu jira maaragtay ama shaqadaas waxaa iskale dhowr hay-adood baa iskale waxaa iskale oo dastuurku uu mataqaanaa uu sameeyey guddi la yiraahdo guddiga madaxa bannaan ee hirgelinta iyo dib eegista dastuurka wuxuu kale oo dastuurku ayagana sheegayaa in ay abuurmi doonaan guddi la yiraahdo guddiga la socodka iyo isagana maaragtay tilmaamidda iyo hagidda oo noqonaya guddi baarlamaanka ka soo maaragtay ay baarlamaanku iska soo doortaan waxaa kaloo jiraya markaas wasaarad baa jirta ayada lafteedu dastuurka arrimaha dastuurka ka shaqeysa oo ka tirsan dowladda federaalka ah waxaa kaloo dastuurku sheegayaa in wax ka bedelka laftiisa maamul goboleedyada jira iyo kuwa imaan doonayba ay xubno ku yeelan doonaan qaabka maaragtay uu u soconayo hab maaragtay qoraalka ama qoraalka dastuurka uu u soconayo hadalkan ka soo yeeray mudanahan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya gaar ahaan guddiga madax bannaan ee dastuurka ayaa imaanaya xilli dhawaan gudoomiyaha guddiga dastuurka ay sheegtay in qaar kamid ah qodobada dastuurka wax laga bedelay Axmed Xasan Ibrahim Somali Cable magaalada Muqdisho